السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada saaxiibayaal barta anaga daawanaysa waa dhaay maale haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar haddaad horey noola joogteen muuqaalka share garee oo like saar saaxiibada la wadaag mowduuceena maanta waxaan kaga hadli doonaa canshuurta cusub ee lagu soo rogay magaalada Muqdisho iyo sida ay ugu falceliyeen shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka tiribeelka ah ee haysta shacabka Soomaaliyeed waxaa kamid ah canshuuraha badan ee loo yeelay magacyada kala duwan ee ku kala dhaca gacmahana aad ku fara badan ay haddana waxaa soo korortay canshuur cusub oo laga qaadi doono iib kasta oo dhaca canshuurtaas oo wali ku fidin ama ku baahin guud ahaan dalka Soomaalida waxay ku gaar tahay magaalada Muqdisho waxaa durba qayladaan ka soo yeertay shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho iyagoo aad u diiday in maarta culeys kasta iyaga maarta kaligood la saaro shacabka reer Muqdisho arintaas aad uga gadooday misana sheegay in ay jiraan dhibaatooyin kale aad u fara badan oo iyaga kaliya haysta oo gobolada kale ee Soomaalida la qabin sidii caadada ahayd markii ummadda Soomaaliyeed uu culeys soo wajaho ama arin cusub ay ku soo kororto waxa u hadla oo warkooda soo koobo oo kor u qaada abwaanada Soomaaliyeed abwaan Zikriya Xaaji Nuur Tuxo ayaa noqonaya abwaankii u horeeyay ee arintan ka hadla buuqan ka taagan magaalada Muqdisho waxa uu cadeeyay xaqiiqnimada ama dhab ahaanshaha culeysada haysto shacabka reer Muqdisho oo haysanin gobolada kale ee Soomaaliya wuxuu Zikriya su'aalo badan ku weydiiyay madaxda Soomaaliyeed xamar waxa laga damacsan yahay wuxuu ku nuuxnuuxsaday maansa maartay farshaxankeedu aad u sareeyo maansa soo sharaxaad maartay lagu koobi karin aan maartay idin taabsiyo jadwalyadeeda wuxuu leeyahay abwaanka canshuuraha la qaadayo maxaa saaray qolo gaara qaruumaha adduunyada hadii loo qaraab doontay qaramada midoobana hadii kaalmo laga qaatay oo qarashka inta gaaraya loo qaybsami waayay ninkii qadayni kari waayo quraacdi soo dhaaftay qarsinkiisa cashadana lahayn qaando iyo xeero qorax iyo asoo qaxar ku helay dollar uu qaatay kumigiisa in lagu qabsado ama loo qoonqooto qalqalooca meesha ku jira wayla qalad weyne tiyo qarax la ciirciirayo la isku qalanayo oo qowleysato ree hebel qoloba meel hayso oo qanaas iyo waswaas ka jiro qol walbood eegto oo qoloba qola diidan tahay qiilna ka hor keento oo aan dhiiga qulqulanaya loo qiyaas haynin waxa maamuladu ay la qabin qayaxan oo muuqda maxaa qoorta noo suray inaga qaadirkay magane war qayaxa waxaan waa mashruuc xamar u qoondaysan ama nadaaya qeyrkeen waa qaramo waaweyne abwaanka maansidiisa oo maaragtay aad maaragtay u sareysa waxa maaragtay su'aalo ku weydiiyay madaxda Soomaaliyeed isagoo leh war maaragtay waxaan anaga maaragtay ma noo gaar yihiin isakaya dhaafa haddaan la sharixi karin oo naloo cadeyn karin oo maaragtay in arintaas ay la qeexi karin isakaya daaya qeyrkeen waa qaramo waaweyne waxaan la hago rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimada fahantaa oo maaragtay ilaahay culeysaadkan ku raagay oo waqtiga badan haysta ilaahay uu ka dulqaado Muqdishona si gaar ah waxaan la hago baryaynaa inuu ilaahay ma nabad ku soo dabaalo culeysaadkan tirada badan oo ay la gaar tahayna oo ilaahay ugu bedelo fudeed iyo laruuro intaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.